al-shabaabna doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda Soomaaliya. Sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wada hadallada? Mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab? Dalabaadyada in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ah. Waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid maamuladii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya, kuwaasoo mabda'iyan ka sinaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab. xaqiiqa ahaanna khubarada Soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wada hadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wada hadallada Taliban iyo Mareykanka. khubaradaasi waxaa ka mid ahaa Professor Afyara Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga Jaamacadda Qatar University. Professor Afyara waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wada hadli karaan al-shabaab iyo dowladda Soomaaliya. horta waxna waa waqtiga waxna waa mabda guud oo ah in nimanka hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo mabda ahaan anigu kulay waxaan kamid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso waayo option kale ama wadada kale kaliya furan waa in laga adkaado. mabda aan ka soo qaadanaa mabdiyan in lala hadlo waad aaminsantahay. waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo. nagu markii 2012 aan qornay article-kii kulli aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyay oo waxaan laga qoray arrinkan asaga ah. waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob: shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. shareecada in la dabaqo iyo ciidamada shisheeyaha inay ka baxaan dalka. shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yiri shareecada waan qaadanay. dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integrateeyay oo qodobo muhiim ah ku jiray. arrinta kale oo mabda ah oo iyagu markaa ku dhaganaayeen waxay ahayd in ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go'aan la gaaro oo wax la isla garto farsamo ahaan la isla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Etoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii la isla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay ku soo gashay dowladda ahayd waa tii la isla gartay markii heshiiska la gaaray in Etoobiyaanku baxeen. waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wada hadalku uu qayb kaliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka al-shabaab, kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awoodooda military la wiiqo si ay wada hadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan al-shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? al-shabaab waxay hogaamiyaha Taliban Mawlawi Habibatullah Akhundzada u aqoonsan yihiin inuu yahay amiirka mu'miniinta. sidoo kale waxay Taliban muddo dheer martigelinaysay ururka al-Qaacida oo al-shabaabna ay xubin ka tahay. haddaba ma laga yaabaa in wada hadal iyo heshiis dhex mara Taliban iyo Mareykanka uu ka dhigan yahay in al-Qaacida iyo al-shabaabna ay aqbalayaan? khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo xiriirka al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala gala al-shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka al-shabaab ee gobolada Baa iyo Bokool. waxa uu leeyahay al-shabaab way ka duwan tahay ururka Taliban marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah oo uu ku doodayo in al-shabaab ay aad uga fog tahay. waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni kara in qofku wada hadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awoodiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagii wujuudkaadii baa baaba'aya. marka jiritaankaagii wujuudkaaga uu u sugnaado ama ila daaqadii awood aad kasoo ceshanayso wada hadal fur way dhici kartaa wayna qofka ku kalifto. waxaa kaloo ku kalifi kara markuu is yiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aad waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartid, bal wada hadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. saddexda arrimood aan sheegnayba hadda markii lasi qodka dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaar ah oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro, oo sidii unbay dagaaladeen u qaadaan meelihii maamulaan ay u joogaan. laga yaababa haddaba dadka qaarkood inay saadaalinayaan inay dhaqaalihii ay heli jireen ka badan hadda inay helaan.
oo meelo fara badan kaleeto oo canshuur ay ka qaadaan oo gacantooda ay gaarto. Marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin, maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kalifaya ma muuqdo. qodob kale oo ay taalibaanku kaga duwan yihiin al-shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaareen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii Ciidul Fitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyado kala duwanna laga wada hadli karo. ururka al-shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda, hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fadhiisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid dabadhilif ah, halka ururka al-shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Ibraahim Nadaara mar kale. masalada horta masalo doodeedu taagan tahay weeye. ayaga markii ka system ahaan iyo nidaam ahaan la yiraahdo beri hore waan ogaa dooda inay taagneyd. waxaa keena in la ishaareeyo ama lasoo kiciyana berigaas waxay ahayd tusaale ururada ay maanta laleeyihiin gacansaarka laleeyihiin ay kamid tahay Taalibaan oo kaleeto wada hadalay galaan ama dowladda Afghanistan hala galaano ama dowladaha kaleeto ee shisheeye hala galaano. waxaa kaloo iyadana jirtay ururkan la yiraahdo Jabhat al-Nusra la dhihi jiray oo garabka al-Qaa'ida ee Suuriya ka dagaalama ahaa. ayaga naftirkoodii dowlado badan oo shabaabku ay murtadiin u aqoonsanaayeen bay gacansaar la lahaayeen ama ururo gacansaar la ayaguna taxaaluf iyo isbahaysi la ahaayeen. marka haddii duruufta iyo dantu ay kelisto waa baab kaleeto, laakiin markii ayagu ka Soomaali ahaan oo shabaab oo Soomaali ka dagaalama ay tahay way ka duwan yihiin ururada kaleeto ama Afghanistan kuwa ka dagaalama ama Sham kuwa ka dagaalama way ka duwan yihiin xagga jaanibkaasi. ayagu systemkooda kuma ogeyn oo intaan anigu ogaalkeeda on ka warqabay in dowladda Soomaaliya lala fadhiisto oo walhadal lala galo ha toobad keenaan waxaan ahayn oo ugu jiray maana ogeyn. haddayna hadda gadaasho wax iska bedelo. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horeysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka al-shabaab. hay'adda culimada ee uu hogaamiyaa hadda ka hor waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso al-shabaab iyo dowladda Soomaaliya. waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kalifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku. runtii waa su'aal muhiim ah oo mawduuca la xiriirta. waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay u dhow ayaa ogaan kara oo leeyahay waxaa jiri kara wax isku khasbay labadoodaba. haddii daraf uu arko in dagaalku uu dab yahay iska sii wadi lahaa. marka ay tahay labadii qolo inay isku khasban yihiin. marka dawladdaas isku khasbay waxa uu yahay nooc uu yahay daraasad looga baahan tahay aan uga faa'iidaysano oo anaka nabadgeena iyo maaragtay xaaladan haysata laga faa'iideeyo. arrintii maaragtay aad iyo aad ila muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale ah. hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama maaragtay umuuqan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa. laakiin diriko waxa abuurma ila tahay maaragtay aragtida bedelay mid kastaba ku khasban inuu maxaan ku yiraahdo kintaal la fariisto. diriko waxay ahaan karaan Taalibaan sidaan sii sheegay oo maaragtay xarako maaragtay hadaf kooban leh oo warkooda kooban yahay yani hadafkooda cad yahay meesha u socdaan cidii la dagaalamay ay kooban tahay. iyo Maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ka daba dheeraaday oo uu ka dareemo meesha inay ahaato wada kale ku jiraan baa dhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinayo ama lagu dhibahayo. marka uu rabo inuu sida dhiga maaragtay isagoo maaragtay qaba uga siisto si meesha maaragtay ay sinbirraxay sidii itixaadka feetigii hore ay maaragtay ay sinbirraxday oo meesha lagu dilay ay ahaan karta. sida marka sida noqotoba duruufta la daraaseeyo isku khasabtay labada caday labadan daraf ee muddo isdagaal hayay isku khasabtay isku yimaadaan. duruuftaas inta daraaseeyo dadka maaragtay aqoonyahanka laga faa'iidaysto in ayagoo kale haddii la heli karo dalkeena runtii laga abuuro aad ay maaragtay fiicnaan lahayd in iskuladan dheeraatay xal in la helaan dhici karta insha allahu tacaala. waaye marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiraya dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaabo uu sheeganayo ayaa jirta. haddii la yidhahdo maanta al-shabaab ha lagala hadlo maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo colaada la joojiyo xabad joojin la gaadho maamulka ay ka qayb qaataan saamigooda ay qaataan dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo bixitaanka ciidamada AMISOM laga hadlo ma ogolaanayaan bay kula tahay maxay ogolyihin? horta wallahi intaan ka aqaano meesha anigu maaragtay waxa weeye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haysta dhowr mushkilo weeye.
وفي waxa weeyaan waa mushkilo xagga ururku sida ay sheegtay urur caalami ah oo qaacida ayay maaragtay xaqiiqii sida sheegayeen hada qaacida urur caalami ah oo mushkilo caalami ah inuu xalliyo raba mushkilada muslimiinta haysto dhan ayagu maaragtay xalin mas'uul ka yahay ama xalinteeda asagaba shirka u garaacday ama xalinkeeda qaaday ururkaas caalamiga qofka maaragtay kamid yahay qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlayaa dadka de mushkilo maxalli ah ama wadan gaar ah laba ka hadlayo waxyaalaha ay sheegaan oo dalka maaragtay la xiriira ana waxa la tahay waa nooc iska maaragtay marsiiqa digid maahan ninkan waa maaragtay ururka qaacida urur caalami ah wuxuu u socdaa mushkilo caalami ah inuu xalliyo oo Mareykan iyo UN iyo halkaas ay asagu maaragtay ay la miseeyay marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo go'aankooda laftiisa in ay gacanta ku hayaan sida su'aal baa ka iman karta maadaama nimankan ay ururka leeyihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumana ay maaragtay dirka gaar ay ku jiraan oo maaragtay ay kala joogaan go'aanka hadalka laftiisa kamuusan kuwaan hadda anaga noo muuqda ama meel oo Soomaalida ah gacanta ay ku jiraan iskala waan sida muuqata markay tandiimka ay soo shaqeeyo ninka maaragtay mas'uulka oo tandiimka xukuumaha oo qaacida xukuumaha ayaa go'aanka iskale intaasna waa nin dirifka maaragtay dirifka haysta laga yaabaa kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaga digayo maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla mushkilada Soomaaliyeed ma aha taariikhda ururka al-shabaab mar kaliya ayay ku soo dhawaadeen inay wada hadal ka galaan xolaada Soomaaliya taasi oo ahayd horaantii sanadkii 2009 kadib markii la sameeyay hay'adda culimada Soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dawladda iyo ururka al-shabaab culimada xilligaasi waxaa dhiiri geliyay in dawladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka Djibouti uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyihii maxaakiimta islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada Itoobiya iyo dawladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed muqaawamada xilligaasi waxay gacan saar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka al-shabaab dawladda Sheekh Shariifna waxay ku soo dhisantay wada hadal dhex maray dawladdii ku meel gaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta Soomaaliya ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wada hadalkaasina ay ahaayeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin Sheekh Shariif Sheekh Axmed hay'adda culimadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo la isku soo dhaweyn karo dawladda iyo ururka al-shabaab maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo ka mid ah dalabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado kuwaasi oo ugu horreysay in waddanka ay joogeen ciidamada Uganda oo xilligaasi ilaalinayay dawladda federaalka ku meel gaarka ah inkastoo ciidamadaasi Uganda aysan ilaa waqtigaasi si toos ah uga qayb gelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab qodobka kale ee caqabada loo arkayayna waxa uu ahaa ururka al-shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muquunin doono dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay guddi u direen ururka al-shabaab guddigaasi waxay hor fariisteen hogaamiyaashii ururka al-shabaab oo ay ugu horeeyaan amiirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku-xigeenkiisii Mahad Karatay ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hogaamiyaasha ururka al-shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii ururkii baaba'ay ee al-Ittixaad al-Islaam Sheekh Cali Warsame galka baarista ayuu uga warramay wixii ay ula tegeen ururka al-shabaab labada qodob baan ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaayeen qodob caqiidi lahaa warnamayow waxaa laydin sheegayaa tafsiir waxaa dadka idinka saaray waxaa leeyahay ama dee laydinka arkaya waa wax tafsiir la yidhaahdo marka maxaa waxaa laydinka haystaa tafsiir iyo dad maaragtay iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamaysa inaysaan inaad la dagaalantahay marka calaa kulli xaal qaybka caqiidada ahayd waana ka wada hadlayna xagga caqiidada qaybka kalena wuxuu ahaa qayb siyaasiya buu ahaa ka caqiidada de waxaan ku saabsanay waa dadkanaad gaalaysiinaysaan ka daaye maxaa ku gaalaysiinaysaan waxba kama aanaan gaarin
waxoodii bay iskaga adkaysteen waxay dadka qayba ay gaaraysiin ma wada gaaraysiinayaan iyagu dadka oo dhan laakiin dad badan oo qaybo ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen marka calaa kulli xaal qaybka ciidada waxaa wax iska bedelay markii halkoodii way maxoodii ku adkaysteen ay ku adkaysanayeen marka qaybtii kale iyagu siyaasadda ahayd waxaan u soo jeedinay maaragtay dagaalka aad la dagaalamaysaan dowladda mas-uuli hadeertigi ajeglaan weli ogaan waxay qabanaysa iyo waxay qaban doontaba wax heshiisa la geli kartaan oo maydin dhexgalaa oo wax heshiisa maydinka suula gelayaan laana ku niri marka waxay yidhaahdeen wax heshiisa ilaa uu saaro qolada ajaanibta waalaiskiiba u badnaa markaa joogay intaan la samayn bay ahaayeen kuwan badan oo noocyadan badan ee gaalada ilaa uu saaro maxaan idhahdaaye nimanka ugandaiska ka saaro wadahadal la yeelan mayno hadal yidhaahdo magana waxaan ku yiri bal horta aan ha dhamayso saaridu ha dhamayso ila haddii iyada wax hadali jirin waxa weeyaan de waa haddii la yidhaahdo iyada wax hadali jirin hala saaro welina ninkii aanu hala iska taagin de waxa weeyaan ku qabsada weeyaan inta ka horeysa wax laga gaari karna oo maaragtay masalan annagu waxaanu fari karnaa inaan nidhaahno haddii heshiis la gaaro oo aad soxodaan in maaragtay masalan inaan maaragtay waxay in wadahadal aan samaynayno oo wax heshiisa aan wadageli karno waxa weeyaan marka waxaan odhanaynaa hadday nimankaas heshiis karaan saara annaga odhanaynaa ha laga saara nimanka ogaamayska iyo gaalada calaa kulli xaal iyana waxay ku adkaysteen horta ha saaro markaas aan la hadli doonaa marka qoladii kale inday waxay yidhaahdeen haddii hadday nimankaasu hadday doonayaan heshiis yaani shardi looga dhigin horta hala saaro inaan wax ku heshiino haddii aan wax ku heshiino markaa baynu ka hadli karnaa saarida nimankaa la saarayo laakiin hadday leeyihiin horta hala saaro maytaa ma aqbalayno ka wada hadli mayno arrinta markay hadda arrintaa tahay arrintii markay qoladaas intii siyaasadda ahayd qaybtii siyaasadda ahayd ay halkaa iska taageen wixii kale aanu ku haysanay dee taswiirka ahaana iyana aanay waxba iska bedelin iyo halkaasaan isku macaasiraanaynay halkaa yaan nimanka laba maalmood baan isugu soo noqonay oo xaggooda qaybka iyagu joogaan baanu tagnay marka halkaas baa isu ay dhamaysay nimankii aan isku macaasiraanayn waayo xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idin soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahaya la xaajooteen waa kuwe horta may badnayn laakiin dee kii markaa madaxda u ahaa waa ninkii godane weeyaan ninkii markaa madaxda ahaa ay jireen weeyaan buu ahaa iyana la yidhahdo mahadkaratay adigu dheeda aan badnayn bay ahayn nimanka noo yihiin markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahadkarataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeeday aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayd horta ninka iska hadlaya waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaaba isagaa dhajaanis la sii waayey maantii o dhan wuxuu godaynayay isagaa dhajaanis loo diiday marka markuuba dee sais la sii waayey ayaa waxaan ugu mahmaahay nin odaya oo adeeray bu toosan baa qola damade ee jir kala baxdo waxay yidhahdeen gaas khayraa la odhan jiray waxay yidhahdeen gaas khayrow arrinta caynkaas iyo caynkaasa ka waran haba arrintu aamusay buu yidhi waaladeero midiga yar aad wareysatama wey midiga yar aad wareysatama wey waxaan ku yeena godanow waa cid naga yar waad maanta o dhan ukudhibay daradii raggan waa mashaakilaadi weeye raggan waa mashaakilaadi waad garanaysaa cid naga yar oo aad u khudbabaysa miyaad weydi marka jaanis naftiis kuma xidhin meesha kuguma xidhinin marka ninka hadlayay alaa waxaa magacaasu ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dawladda dhinac ka raaci kara qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin maya fili maayo waxay arkayaan de waxa maamulka ku jira inay gaala yihiin bay arkaan
markaasaasi fili maayo inay ka suurageli fili maayo inay ka suurageli karto haddii la yidhahdo dowladda dalkaas senegal ku arkaya maxaa qaysan kartaan badda maxaa isku darsan karta. inkastoo dhexdhexaadinta hay-adda culimmadu aysan guulaysan haddana waxay isku dayeen inay wax dhaqaajiyaan si ay kalsooni u abuuraan. culimmadu waxay dalbadeen in baarlamaanka Soomaaliya uu xaqiijiyo in waddanka lagu maamulayo shareecada muddo 120 maalmood gudahood ah iyo in isla muddadaas ay ciidamada AMISOM ka baxaan waddanka. baarlamaanka Soomaaliya waxa uu aqbalay qodobka hore waxaana uu aqlabiyad ku meel mariyay in shareecadu ay tahay aasaaska shuruucda waddanka. waxayse baarlamaanka iyo hogaamiyaasha dawladduba diideen in ciidamada AMISOM laga saaro waddanka iyadoo aan la gaarin xal siyaasadeed. gudoomiyaha hay-adda culimmada Sheekh Bashiir Axmed Salaad waxa uu aaminsan yahay in ururka al-shabaab aanu ogolayn wax macaamil ah. marka waxaa loo baahan yahay inaan fahmiyo horta anaga mushkiladda ma haysa sababta shabaab keliya ma aha runtii dhibka aad u muuqda waa sax xanuunku waa badan yahay laakiin nimankaani waxay ku asaasmeen horta in la ileeyo maaha waxay ku asaasmeen ayaga iyo gacdareedka ay ku leeyahay dowlad la-aanta bay ku asaasmeen. marka horta halka waxaa qayb ka ahaan kara horta in dowladii asaaskeeda lagu dadaalo dhismaheeda lagu dadaalo oo wixii nimankaa fursada siiya lasoo afjaro oo meelo kasoo galeen ay soo xidmaan horta baa loo baahan yahay oo muuqaalkii dowladda iyo sistamkeedii iyo barnaamijkeedii oo maqnaanteeda waxaan uu keenay horta waa in macankuda lagu dadaalaa in waxaas maaragtay istaajiyo. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu leeyahay al-shabaab waa dallad ay ku wada jiraan kooxo kala aragti duwan oo ka wada tirsan ururkaasi wuxuuna aaminsan yahay in wada hadallo ay suurtagal yihiin isla markaana aan sidaasi looga quusanin ururka. culimada aan la hadlay maxaan ku idhaahdaa waxay iyagu leeyihiin arrintu waa mabda'iyan sababtoo ah marka hore wada hadal intaan la gaarin al-shabaab horta gaalaysiinta waa inay ka laabataa waa inay dadka dilkooda iyo dhiigooda joojisa taasaa ka horeysay leeyihiin in horta ay aqbalaan inay la hadlaan. qodobadii la hordhigay shabaab ay ku doodeen 2009 way ka mid ahayd baa layidhi qodobkaa ka hadal. horta shabaab oo dhan haddii laysku qabto oo la yiraahdo halkaas arrin ay aaminsan xoogaa waxaan u malaynayaa waa dad badan oo aan isku wada aragti ahayna laysku qaadaya. waa run ra'yigaas badane iyo qaar badan oo lamida waa qabeen. waxaa kaloo jira oo la ogaa markaas dad fara badan oo ayaga ku jira inaysan ra'yigaas la qabin. dadka dhan oo meesha wada joogaya wada qaba ra'yigaas aniga kulley dadka qaba ka mid maahay. waxaan isleeyahay waa jiraan dad qaba dad aan qabinna waa jiraan. marka waxaa muhiima waxa waaye qolada aan qabin in la empower gareeyo oo lala doodo oo lala hadlo oo kuwaasi ay yeeshaan. laakiin aan kaa dhex galo haddii la yidhaha qayb lala hadli karo baa ku jirta taas macnaheedu waxa weeye uun al-shabaab oo isku duuban lama rabo ama rajo lagama qabo in wadahadal lala galiyo oo isku duuban ee hala kala jebiyo un ama qaar un halaga soo gooyo. taasna horaan usoo aragnay oo dad madaxa way kasoo goosteen laakiin haddana ururkii dad kale un bay ku bedeleen xaaladdu wax badan isma bedelin. waa runta oo habta dadkii xataa mushkilada jirta dhacday waxa waaye dadkii kasoo baxay oo Mrobow iyo ay kamid ahaayeen Zakariya iyo Abdullamid ay kamid ahaayeen markay yimaadeen nidaamkan inta u yimaadeen horta niman oo waxay noqdeen hadda qaarna waa xiran yihiin kuwana waxa waaye wax badan meesha kama joogaan. marka horta wax soo dhiirigeliya oo xataa kuwa raba inay kula inay la hadlaan dadka dhiirigelin karaa horta oo dhinacii kale ka soo baxay ma jiraan marka runta loo hadlo. tan kale aakhirka waa markii mabda noocan oo kale uu yimaado oo lala dagaalo waa inaan horta taariikhda wax ka baranaa oo aan markaad u egto qaar weligood mara ku dhega oo extremista urur kastay kasoo baxaan kuwaasna inta badan ama waa la muquuniya ama waa laga bataa. marka waxaa la rabaa jawigii looga bada lahaa oo ra'yigooda loo discreditgaray lahaa suuqa looga saari lahaa ayaa laga rabaa qoladan dawladda iyo qolada kale oo xataa ayaga ku dhex jirtaa inay kasoo dhex baxdo. yani waxaan xasuustaa berigaa godane khudbad uu ka jeediyey markaan niri hala hadlo khudbadiisa
wuxuu kusoo qaatay articlekii aan qornay oo leeyahay waxaa la rabaa in la dhex galo oo saan la yeelo oo khudbada oo dheer oo abaar dhan ka hadlayay marka waxaad moodaa marka inuu u isticmaalayo hab propaganda oo leeyahay dad oo gaala ah iyo kuwa gaalada la jooga iyo wax noocaas oo kaleeta aan sameyn marka waxaa rabaa in si kale inta loogu dhigo la yidhaha waxaan gaala kama imaanayaane dadkii muslimka ahay oo soomaaliyeed dimaankoodii waaye iyo wixii ay rabeen. dowladda Soomaaliya waxaan ku marti qaaday barnaamijkan hase yeeshee wasiiro iyo mas'uuliyiin kala duwanba waxay diideen inay ka qayb galaan barnaamijka galka baarista. si kastaba ha ahaatee Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu qabaa inay wax tari karto in la ogaado mowqifka rasmiga ah ee dowladda ee ku wajahan wadahadallo lala gala ururka Al-Shabaab. balse dhinaca kale Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay inay adag tahay in la jilciyo fikirka qalafsan ee ururka Al-Shabaab. kaba soo qaad in la wada hadlo shabaabku maxaan ku idhaahdaa sidooda ma ogol yihiin in wada hadal marka la galo loo ballan qaado ama kalsooni lagu siiyo ama damaanad qaad kale dastuurku inuu saldhig diinta islaamku inay u noqonayso ciidamada AMISOM iyo ciidamada Shiina wadanka inay ka baxayaan iyaguna inay maleeshiyadooda ku soo daraan maxaan ku ciidamada dawladda jagooyin dawladda ay ka qaataan ka waran qaab noocaas ayaga hadda waxay u qarsoon aniga ma garanayo wala hadda ficilkoodii iyo waxa ay sheegayaan ay wax badan iskhilaafsan yihiin dastuurka dawladdu ma aaminsana daba iyo dacalba in xataa kala saarin maxaa diinta waafaqsan maxaa diinta khilaafsan midna magacaas dhib ku ahoo dhibaya midda kaleeto waxay kaloo ayaguna haddana ay sheegaan in ciidamada shisheeye wadanka laga saaro shareecada islaamkana lagu xukumo waa inta sida publica ay u sheegaan mar walba walow hadda shareecada islaamkuna aysan ogolayn wax badan ayago ay samaynayaan oo waxay sheegayaan iyo waxay samaynayaan ay habeen maalin ay kala tahay farqi aad iyo aad uu u dhexeeyo de horta in la wada hadlaa ka horeyso qofku shuruud adag buu samaysan karaa shuruudda adagna waxay ku jilci kartaa ku fududaan kartaa marka horta la isugu yimaado wada hadalkii labada dhinacba la wada ogolaado aan kulano wada hadalno baa ka horeysa maxaynu ku wada hadalnaa haddii in la kulmo la wada hadlaba aysan jaaniskeeda furnayn ma aha waxaa laga wada hadlayo hadda in la sheego oo qoladan intaasay wadan kartaa qoladan intaasay wadan kartaa la dhaho su-aasha ugu weyn waxay tahay horta ma la wada hadli karaa in la wada hadlo oo wada hadal meel la isugu yimaado war dhibka wadanka ka jira sayna ooga wada hadalnaa oon u badbaadinaa labada dhinacba midna hadda baabkaasi kama soo dhawaa mana ka muuqdo haddii xataa la heli lahaa weliba in dhanka dawladdeena iyagu bilaabaan oo iyagu ay sameeyaan oo xujooyinkan dadka iyagu shabaabku ay taabac ay u yihiin ay sameynayaan inay u daliishadaan haddaynan iyagu mashruuc kala wadanin oo ummadan Soomaaliyeed gumaadkeedii baabi'inteedii ummad kaleetii waxaan aanan garanaynin kale aynan gadaal ka taagnayn haddii Taliban sidaa u shaqaynayso oo Mareykanka wada hadal kula jirto oo kuwa Suuriya jooga maalin habeen ay cadaynayaan dawladii ay la leeyihiin baahsi la leeyihiin idinku dadka Soomaaliyeed dadkiina Soomaali ka damqanaysan sida sheeganaysaan in ayagoo xujooyinkaas waxay daliishanayso iyadoo ay ka hadasho way ficnaaneed ay ku dhiiradaan oo si ummaduna ay garab ugu noqoto laakiin dad wax garab ah iyo dadka si gaaray dadka uma baaqida ka soo yeeraya dadka dhabta wali baaqooda lama inkastoo ay wada hadallo u socdaan Taliban iyo Mareykanka isla markaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan haddana Taliban weli lama aysan hadlin dawladda Afghanistan sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan Mareykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka Afghanistan isla markaana uu ku soo afjaro faragelintiisa wadankaasi oo socota sanadkii 19 dalka Soomaaliya markaan eegno AMISOM ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dawladda Mareykanka dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan istiraatiijiyo ay ka heleen ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan isla markaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka AMISOM ee wadanka maadaama AMISOM sida dawladda Mareykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh
oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya.